wakhtiga oo la dayaco waxay ka daran tahay geerida maxaa yeelay wakhtigoo dayacdaa waxay kaa jaraysaa xiriirka idiin dhexeeya adiga iyo rabbi subxaanahu wa tacaala iyo daarta aakhiro geeriduna waxay kaa jaraysaa oo keliya adduunyada iyo ehelkeeda qofka munaasibka kugu ah wuxuu ka soo muuqan doonaa noloshaada wuxuuna soo muuqan doonaa wakhtigaad u baahan tahay isaguna munaasibka ku ah ibnu cabbaas allaha ka raali noqdee wuxuu yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ka faa'iidayso 5 ka hor 5 midda koowaad dhallinyaronimadaada ka hor gabowgaada yacnii duqnimadaada midda labaad caafimaadkaaga ka hor xanuunkaada midda saddexaad taajirnimadaada ka hor faqiirtinimadaada midda afaraad firaaqadaada ka hor mashquulkaada midda shanaad noloshaada ka hor geeridaada muhiimadda uu leeyahay wakhtigoo la dayacaa waa cimrigoo la dayaco in badan oo ka mida dadka ma garanayaan aadna uma dareemayaan in wakhtigoo la dayacaa ay tahay cimrigoo la dayacay qofkii cimrigiisa dayacana maalinta qiyaame wuxuu rajayn doonaa in loo soo celiyo adduunyada si uu uga mid noqdo kuwa sameeyey wanaagga ha ka fikirin wixii laga soo tegey ha noqdaan waxa aad ka fikirayso muhiimaddana aad siinayso wakhti xaadirkan la joogo wakhtigu wuxuu noqonayaa saaxiibkaaga ama cadowgaaga taasina waxay ku xidhan tahay sidaad u isticmaasho adiga wakhtiga waa sida seefta oo kale haddii aadan jarin wuu ku jarayaa yacnii haddii aadan ka faa'iidaysan oo aad khasaariso wuu kaa tegayaa kugumana soo laabanayso daqiiqad markuu dhaaftay wakhtigu waa cimrigaaga ee marnabaha odhan wakhtiga ayaan isdhaafinayaa oo ha noqon qofuu dhibayo wakhtiga haddii uu kugu dheer yahay wakhtiga oo aad dhibsanayso waxay ka dhigan tahay inaad noloshaada dhibsanayso oo ay dhib kugu tahay daqiiqad walba qor qiso walba ee ku saabsan noloshaada si ay xasuus kuugu noqoto wakhti dambe iyo sidoo kale si ay khibrad kuugu noqoto waayo dambe qofkii u isticmaala wakhtigiisa si xun waxaa xaqiiqo ah inuu ka shallayn doono maalin uun waxayna noqon kartaa maalintaasi markii uu arko dadkii wakhtigooda ka faa'iidaystay midhihii ay gurteen